wardegdega ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed laftigareen ee shalay weerar ku qaaday duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ka hadlay weerarkii shalay ay ku qaadeen duleedka Baydhabo gaar ahaan deegaanka Iidow iyaga oo guulo waaweyn sheegtay soo bandhigay hub iyo saanad military oo ay qabsadeen maxaabiisna sheegay in ay markaasi gacanta ku hayaan deegaanadii ay weerar ku qaadeen isaldhigyadii ciidanka dowladda federaalkana ay iyagu markaasi si buuxda ula wareegeen welina ay ku daba jiraan sida hadalka ay u dhigaan maleeshiyaadkii xasan sheekh maxamuud uu soo qalday dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya muddo dhowr bilood ah oo ay magaalada Baydhabo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka laftigareena ay si fudud ula wareegeen waxa ay weli maara u laadahay oo xal buuxa ay markaasi u laadahay dowladda federaalka Soomaaliya in magaalada Baydhabo ay si nabadgelyo ah ku joogto kana hortagto weerarada soo noqnoqday ee ka imaanaya ciidanka laftigareen ee iyagu markaasi doonaya in magaaladan ay la wareegaan guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay dagaalada duleedka Baydhabo ka soconaya ee ciidanka laftigareen iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiiba haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya duleedkeeda deegaanka Iidow lagu magacaabo shalay waxa weerar ku qaaday ciidanka garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed laftigareen ciidanka laftigareen ee shalay duleedka Baydhabo weerarka ku qaaday waxa ay guulo waaweyn ka gaareen sida markaasi war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen weerarkii shalay halkaasi ku qaadeen iyaga oo gacanta ku dhigay sida hadalkay u dhigeen sanad military oo noocyo kala duwan leh gaadiid dagaal ciidan markaasi ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo maxaabiis ahaan ay u qabteen sidoo kalena waxay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen dhammaan aagagii lagu dagaalamay iyo saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugnaayeen talaabadan waxay ku sheegeen ciidanka laftigareen inay tahay barbilowga dagaal ballaaran oo ay doonayaan inay kula wareegaan guud ahaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa markaasi daacad u ah garabka aadan madoobe oo la sheegay in dhawaan loo doortay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed laftigareen weerarkii shalay ay qaadeen waxa ay markaasi uu ahaa weerar kadis ah oo xilli markaasi aroornimadii hore ay ku ekeeyeen saldhigyo ay deegaanka Iidow duleedka magaalada Baydhabo ku yaala ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka war saxaafadeed ka soo baxay garabka laftigareen ayaa waxa lagu yiri ciidamada geesiyaasha daraawiishta Koonfur Galbeed iyo booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyaga oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo bulshada markaasi u heelan garab istaaga ciidanka daraawiishta iyo booliiska gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sharciga ah waxa ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka uu soo qalday xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale mooryaan uu dhawaan hub u qaybiyay aadan madoobe oo ku sugnaa saldhigyo ku yaalay deegaanka Iidow ee duleedka magaalada Baydhabo waxa Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku guuleeyay ciidanka geesiyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya inay cagta mariyaan saldhigyadaasi oo ay si buuxda markaasi ula wareegaan waxaana ay sheegeen oo war saxaafadeedka markaasi ay ku xuseen garabka laftigareen in howlgalka weli uu socdo ayna ku daba jiraan maleeshiyaadkii markaasi uu soo diray xasan sheekh maxamuud ilaa ay ka soo afjaraanna aysan markaa ka hari doonin waxa ay sidoo kale sheegeen in weerarkan uu yahay barbilowga dagaal ballaaran oo ay doonayaan inay si buuxda ula wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo bila ka hor ciidanka laftigareen daacadda u ah iyo hogaamiyahoodiiba si fudud markaasi looga saaray oo dowladda federaalka Soomaaliya ay kula wareegtay waxaana weli markaasi ay u dagaalamayaan sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen magaalada Baydhabo